wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Seedo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay saameynta koronkorta ayaxa isagoona sheegay in deegaano badan oo ka mid ah deegaanada Somaliland uu ku soo laba kacliyay koronkortii ayaxu isagoona sheegay ka wasaarad ahaan in ay diyaar u yihiin ka hortagga koronkortaasi. waa maalintii labaad ee ciidul fidriga ilaahay waxaan ka baryayaa in ciideeda ilaahay inagu gaarsiiyo iyo ciido kale oo fara badanba bashbash iyo barwaaqo sidaad ogtihiin 2019 bishii lixaad geyga Soomaaliland waxa ku habsaday ayaxa oo runtii ah faqaran ilaa 2019 bishii lixaad ilaa 2021 oo maanta aynu ku jirno bishii shanaad oo haystaa ayaxaasi geyga Soomaaliland waxaase ilaahay mahadiya iyadoo wasaaradda horumarinta beeruhu gudanaysa waajibaadka dastuuriga ee haw xisaaran tahay oo noo igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inaan dadaal dheeriya oo runtii awoodeeda ahayd aanu dadaalnay oo aanu garabna ka helnay hay'adaha caalamiga ee wasaaradda beeraha wada shaqeeyaan oo ay ugu horeyso hay'adda cunnada adduunyada ee FAO iyo USAID oo fadhigeedu yahay iyadna Mareykan oo naga caawiyay runtii sanadkii hore 2020 ilaa 5 diyaaradood oo muddo 8 bilood ah joogay dalka Somaliland magaalada caasimadda Hargeysa madaarkeega waanu kula dagaalamayna runtii ay xaq ku habsaday dalka saadarteed diyaaradaasi waxa ay 4 kontaraadkii waa naga dhamaaday way noqdeen hal diyaarad baa imika noo shaqeynaysa 2 diyaaradoodna waxay kala imanayaan midna maanta imanaysa midna sabtida marka saadarteed waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Somaliland ee beeraleyda ah meel kasta oo ku aragtaan dhibaatooyinka ayaxa waxaad ogaataan in wasaaradda horumarinta beeruhu ay u igman tahay in wixii awoodeeda ay la dagaalanto iyadoo runtii imika meelaha uu ka jiro ay ka tahay xeebaha gobolka Awdal iyo xeebaha gobolka Saaxil iyo Maroodijeex iyo gobolka Daadmareer ee Oodweyne iyo waqooyiga gobolka Togdheer iyo Agabar iyo Xeego intaas waxa weeye inta maalmahan ay aad uga dilaacay Agabar iyo Xeego waxaan ka cabsi qabnaa in koronkortu mar labaad ka dilaacdo iyadoo runtii aynu iskarboodno buufintii oo baabuurtii iyo diyaaradihii iyo dhalinyartii u tababarnayd ee wasaaradda horumarinta beeraha oo sida qalabka lagu buufiyo ayaxa ay ku gaashaamay yihiin muxuu ahaay haamaha dhabarka ku qaadaan haysitaan waxa kale iyaduna aan hawsha ka wadnaa dhinaca la yiraahdo kantaroolka waxa weey kantaroolkuna markay dilaacayso muxuu ahaay koronkortu waxaan ku kantaroolnaa intayna duulin inaanu tirisho sameeyno dhulka hoostiisa qodno dibna saa loogu aaso wasa caalamka oo dhan way kula dagaalamo weey marka waxaan shacabka ugu baaqayaa waa faqaran weey qarankuna meel buu ka soo jeedaa xukuumadda iyo muxuu ahaay shacabba laakiin waanu dadaalaynaa shacabkuna waa inay ogaadaan in dadaalka dheeriga ee badan ee socda uu yahay waajib qaran oo annaka nasaaran ilaahayna waxaan ka baryaynaa si aynu ugu muxuu ahaay u gudanno waajibkeena ay ka mid tahay in wax soo saarkeena kor u qaadno ilaahay masaybada iyo dhibaatooyinkaana ay xanayn naga furto dadkuna inay ku tala galaan kalsooni badan iyo dadaal badan oo wasaaradda horumarinta beeraha wado wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale fariimo kala duwan u diray beeraleyda kala duwan ee dalka waxaan ugu baaqayaa dadka beeraleyda ee dhammaan gobolada jamhuuriyadda Somaliland inay u diyaar garoobaan wax soo saarka dhinaca beeruhu waa laba qaybood qaybina waa wax soo saarka cunnada qaybina waa wax soo saarka khudaarta ama geedgaabta la yiraahdo oo runtii imika aanu marayno meelihii ugu wanaagsanayd oo aan hirgelinay wasaaradda horumarinta beeruhu greenhouse-yada ama guryaha dedan ee khudaarta geedgaabta lagu beero oo nimka ku fidinayno dhammaan geyga Somaliland oo dhan oo aanu doonayno in Somaliland mudooyinka soo socda ay ka maaranto wixii khudaar ahayd ay nooga iibin jirtay wadamada aynu dariska nahay ee jaarkeena dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed ayaa waxa uu beeraleyda kala duwan ee dalka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan dhibica roobka halka waxaan ku jirnaa runtii waqti roobaadkii bilowgiisa baynu ku jirnaa oo xilligii wax la soo saaray baa lagu jiraa waxaan ugu baaqayaa shacabka muxuu ahaay ku nool gobolka Awdal gaar ahaan gobolka Awdal oo boqolkiiba 70 beeraley
inay laban wax soo saarkooga oo dalkooga aaminaan oo kala soo baxaan waxay quudda daruurigooga ay kala soo baxaan oo ciidda lagu foorarsado وعبد الله داهر وعستيفيق عالمي الصاب مقالة بورما